sida uu bogiyo beerkayga ku tabaho aan kugu bahanahayo dana igu boholyo bilicdado aragtida indhaha ku bogayay soo booqashada iyo la ogow waqti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo dunida daafaheeda aad ka joogtaan halkan ka daawanaysaan waa Dalmar Official TV aniguna waxaan ahay Cabdikariin Cabdullaahi Yuusuf saaxiibayaal soo dhawaada caawa barnaamijkeenu waa barnaamij la yaab leh barnaamijka caawa waxaa igala qayb galaya oo dhankayga midig taagan Mustafa Jaamac Aadan soo dhaw waan dhawahay Cabdikariin aad baan ugu dhawahay barnaamijkana kaliya laab oo maasanta saaxiibayaal barnaamijka maanta waxaan igala qayb qaadanayaa Faysal Axmed oo taagan qaabkayga midig aad iyo aad baan kuu salaamay Cabdikariin oon ku dhowahay barnaamijkaaga asxaabtaadana aad baan u salaamaya qaaliga adna aad baan kuu salaamay daawadayaal ama saaxiibayaalba caawa barnaamijka si toosan ugu gudagalayna barnaamijkeenu waa tartan heesaha asxaabta ay kala saaraysaa oo go'aaminaysa qofka aadka u cod macaan si cadaalada ay ku dheehan tahay fartana hala yareeyo saaxiibayaal barnaamijkeena caawa waxaanu ku furanaynaa Faysal Axmed oo inoo qaadi doona heestii wadartii haweenka kusoo dhow dhawahay Cabdikariin barnaamijkan aad iyo aad baad ugu mahadsantahay soo aawashay Cabdikariin haddaan heestan ku tartamaya aan qaado waxay heestu ka bilaabmaysaa wadartii haweenkaad gabar yahay wax dheerto waxyahaagan simaniyo wejigaaga quruxda leh wanaaga adu dhalataye iska weerar gelisaye waxa noola dunyada iska weerar gelisaye waxa noola dunyada adaan kugu warwaraya warna imahayside adaan kugu warwaraya warna imahayside haddii wayne inagu simo jacaylaan wadaagne adnahay waxyeelayn saaxiibayaal aan intaa kaga nimaadno heestaa uu qaaday Faysal Axmed haddana waxaan soo qabanayaa oon siinayaa Mustafa Jaamac heestiisu ku tartamayo waayahay saaxiib heestan ku tartamayo waxaa qaaday fannaankiina weynaa Allah u naxariistee Cabdi Tahliil Warsame waa heesta la yiraahdo Ogaaso jacaylayatin labaan abuurno waadogaydo inta nudubkiisi muday baan ilaasho waan adkeeyo abaydin sidii u dhowre markan kulahaa ogaasoy ujeeda fog baan lahaa afeefadan baan lahaa ammaanada dhowr lahaa markuu bixi iskadhay markuu intifaacsi joogo maxaa uur xumaada keenay maxaa uridaa ninkedii aflay lagu saanayahayo weliba asaaraar ku duuliyo maxaa eedii xambaarshay abaal darane haddaad ujeeda xinka u buuxday ilowsha dhowey naftaa dhexdeenanka ogano wuxuunbay cuquba raacdo anigu ka aarsan maye ilaah baan talada saartay oo ilaah baan talada saartay haddana waxaan soo gaadhnay Faysal heesta uu ku tartamayaana waa hees uu qaadi jiray ama uu qaaday Faysal Cumar Dhuule heestaa Cumar Dhuule waxay tiraahdaa dhaxaadi sidato adunku samrayo nafta kugu sasabahaye dhaxaadi sidato adunku samrayo nafta kugu sasabahaye dhaxasiriyo caad wixii aad samaysaba ku sacaba tumaye ogow samirkii waa jiray
wasaasegta nootayo sadkiisa dhammaadee. saaxiibayaal ama daawadayaal baa intaa kaga nimaadno heestaa uu qaaday faysal taasoo qaadi jiray cumar dhuule. haddana waxaan soo qabanaya oo garbakayga midig taagan intaana heesta soo qaban su-aashaan weydiinayo walaalkay mustafa jaamac waxaa weeyaan mustafow haddii one day ama hal maalin lagaa dhigi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland maxaad ka bedeli lahayd? madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweynaha Soomaaliya hadii laga dhigo maxaad ka bedeli lahayd? waxaan ka bedeli lahaa horta wallaahi waxyaabo badan baa jira kowdhe runtii anigu waxaan jeclahay horta intaan ka bedelo horta cadaaladaan jeclahay inuu qof waliba mid garanaysa iyo meel kastaba cadaaladda lagu dhaqmo ayaa runtii aan marka hore aan ka bedeli lahaa ama wax ka qaban lahaa ma garanaysaa marka taasunba igu hor aan ma garanaysaa aan ka bedeli lahaa. aad iyo aad bal waxaad noogu xigsiisaa heesta aad ku tartamaysid. heestaan ku tartamayo heesta labaad aan ku tartamayaan soo qabanaya waxa weeye waxa la yidhaahdaa waa heesta janan baa la yidhahdaa waxa qaada cabdi xasan diga ayaa qaada waxaana odhanaysaa adoo joog san waayo joogtaa wadnaha gaadhiyo jir ay ku hayso jilbahana lagu ridee janantii ku siin lahayd jananka midii ku siin lahayd janantii ku siin lahayd jananka midii ku siin lahayd hadday kulaba joogin jirku siduu ku noqon lahaa ruuxaad jeclaatay oo beer jileecle jinni kama celiyeen hadday laabtu kaa jeedo laabteedu hadday laabtu kaa jeedo laabteedu adna jabkuma laabne adna jabkiima laabne dumartaad ka jaamatee hadduu jacaylku lacag yahay jawhariyo lul yahay aan jawaab na siin layd adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan jidka hadday ku orodo jirku siduu ku noqon lahaa ruuxaad jeclaatay oo beer jileecle jinni kama celiyeen hadday laabtu kaa jeedo laabteedu adna jabkuma laabne. adna jab kuma laabna. weli daawadayaal waxaynu ku jirnaa barnaamijkeeni tartanka labada garab waxaa taagan faysal axmed iyo mustafa jaamac. saaxiibayaal waxaan doonayaa kala saartaan oo dhanka komitiga ku saartaan ka codka macaan ay idinku noo sheegtaan. haddana daawadayaal waxaan mikrofoonka siinayaa faysal axmed. faysalow intaana heesta soo qaban su-aal baad inuu ku weydiinaya xilligii ama aad iskuulka dhigan jirtay ma jirtaa maado aad aada u necbayd oo aad ka bixi jirtay? la wadaag. maadadaan aada u nabcaa markan waxbarashada dhigan jiray iskuulka dhigan jiray waxay maadada xisaabta. Maths. wallaahi isku mid baa laga wada Isku mid ah. anna taasa ka bixi jiray wallaahi ugu necbaa Okay. Same waxay noqdeen dookh. hal maado ay wada necab yihiin. faysalow hadda waxaad noo soo qabataa heesta aad ku tartamaysa. istan ku tartamaya waxay tiraahdaa warabuu habeenkii warabuu wareegayo weelkuna weel yahay wadku ima fududaan warwarkeyo dhibtaan qabo ruuxii waya arago waan kala waraystaa waxyeeladan isarane wuxuu adduunye ruuxba waaye soo joog weheshaday dogaagee laga weecan jiray
weheshadayay dugaage laga weecan jirayey isma lahayno koosba kuwaaliye isma lahayno koosba ku celiye waayahay heestan aan markan aan ku tartamayo aan soo qabanaya waxaa qaadaa cabdiqaadir jubba waxay tiraahdaa kalgacalkan baanan jiray baydiyo caynkaan u xiray aroorta bax baan ku idhi baduu sii dhex maray qarfaha haraad buu bestii ahaa baddaan ka cabbaa la yidhi miyuu oon bixin karaa bilciideed dhalashadeed baraarka la sadqaynaayo bilkhayrteeda kuma farxaan hahaha miyey beryaseme u tahay bukaasaa keligii ii yidhi naftayda anaa boqre maxaad isla buuxisaa warbilistaa maadaa wax dheer bukaasaa keligii ii yidhi naftayda anaa boqre maxaad isla buuxiyaa warbilistaa maasaa wax dheer dad baa buunbuuniye dad baa buunbuuniye balaayo ma dhicin doraad balaayo ma dhicin doraad berrina saadaashtu wacan inaan biyo maydhi karayn inaan birna lagu jarayn haha inaan biyo maydhi karayn inaan birna lagu jarayn inaan baana lagu dawayn berriyo mantaba u yahay si fiican halo barte bilaal adin baanu nidhi bilaal adin baanu nidhi bilaal adin baanu nidhi weli daawadayaal waxaad nagala socotaan dalmar official t v barnaamijkeenii heesaha bilaa muusiga caawa barnaamijkeena waa tartan oo kula tartamaya faysal axmed iyo mustafa jaamac oo labada ay garab kala taagan waxaan rajeynaya inaad u kala codaysaan labada wiilba ka codka macaan haddana waxaan soo qabanaya faysal axmed heestaan ku tartamaya waxay tiraahdaa nimcaan ilaacdaa qaaday jiradiyo dhibtaan qabo talo ruux la jaarihe miyuu doonida joogaa miyuu doonida joogaa jidinkii ka gawayo indhehe jacirmo waadigan jibaysane waadigan jibaysane jamashadani hayse jiidatee naftayde jamashadani hayse jiidatee naftayde saaxiibayaal waxaanu soo gaarhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena waxaynu kusoo xidhaynaa mustafe jaamac aadan waayahay heesta ugu dambeysa cabdi karinow waxaan ka dhigaynaa maan cabdiraxmaan xasan helaac baan ka dhigaynaa hees nimcaan leeyahay baan ku dhufanaynaa markan heesta ugu dambeysa aan markaan inoo soo qabanayo waxaa la yidhaahdaa dhalasha ka weyn waa heesta nimcaan helaac uu qaadayey waxay tiraahdaa wawareegto dhigano wuxuu waaxid ku qoray sina laguma waaye walbahaarka caashaqa dhalashaha ka weyno wadanayaal isjecelbaha isweydaarta noloshee hadduu wada jirkii lumay waqtigiyo dharaaruhu kala weecad keeneen wiilkuu calafku dabaday weelkaaga dhigay runaa weligaan loolow wadarubaada kala helaa wawareegto dhigano wuxuu waaxid ku qoray sina laguma waaye walbahaarka caashaqa dhalashaha ka weyno wadanayaal isjecelbaha isweydaarta noloshee hadduu wada jirkii lumay
waqtigiyo dharaaruhu kala weecad keeneen wiilku calafku tabaday wehelkaaga dhigay runaa weligaa la noolow wadarubaada kala helaa saaxiibayaal waxaynu soo gaadhnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena asxaabtii nagala qayb qaatay barnaamijka aad bay mahadsan yihiin waxaanu siin doonaa fariintooda u dambeysay ay ka dirayaan halkan waayahay saaxiib fariinteeda ugu dambeysa halkan aan ka diray waxa weeye asxaabtaada runtii aad baan u salaamayaa kaliya laab asxaabta barnaamijka ku xiran waxaan leeyahay kusoo yaaca kanalkan Dalmar Official TV hala subscribe gareeyo like-ta share-ta waxa wax walba ha lagu soo yaaco insha Allah tacaala ha lagu xidhnaada baan leeyahay kaliya laab aad iyo aad baan asxaabtaada u salaameynaa subscribe noo saara like noo saara commentigana dee noogu soo reeba fariimaha kala saarista somadkan waxaan kas tegayaa hees oo qaado Cabdikariin Cali Shaah sida uu bogiyo beerkaygu ku tabaho aan kugu bahanahayo danaygu boholyo bilicdada aragtida indhaha ku bogayay soo booqashada iyo la ogow baxnaanada dhammaan asxaabta waxaan leenahay like tiyo share tiyo commentiga waxba naga habeeya aad iyo aad baan idin salaameynaa dhammaantiin